iyadoo toddobaadyadii ugu dambeeyay magaalada Hargeysa iyo nawaaxigeeda laga dhageysanayay idaacada FM oo lagu magacaabo Baadigob FM taasi oo sii deysay warar ka dhan ah xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne Sinaayo iyadoo xukuumadda Soomaaliland oo goleyn idaacada madax bannaan ayaa waxa ka hadlay idaacadaasi muddooyinkii ugu dambeeyay si aad looga dhageysanayay gudaha magaalada Hargeysa iyo nawaaxigeeda wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland mudane Cabdilaahi Maxamed Daahir Cukuse soo wasiirku sheegay in ay dawgal ku hayaan idaacadaasi anigu waan ka maqlay dhowr qof oo kalena waan ka maqlay ma aha idaacad weyn oo muhiim ah oo meelo fara badan laga maqlay waa idaacad xaafadaha Hargeysa meel kamid ah oo laga maqlo sida la ii sheegay baaritaankeeda iyo dabagalkeeduna ciidamada ammaanka ayuu yaala waa ogtiino haddii idaacad noocaas oo kale meelaha lala dhuundhuunto way suurtagal bay noqonaysaa cadowguna inuu mid kale la dhuundhuunto sidaa awgeed baa loo diiday adar wax maara loo waayaa ma jiro dunida intaas dalka joogta intaas oo caqli baa jooga waxaan wax rag u waayo iyo rag iyo dumarku ay maara u waayaan ma jiraba sidoo kale wasiirku ay warbaahintu wax ka weydiisay wararka sheegaya in la dilay hogaamiyihii xarakada al-shabaab ee ka dagaalanta koonfurta dalka Soomaaliya ayaa waxa wasiirku su'aashaasi kaga jawaabay sidan anagu dawladda Mareykanka aad ma nihin al-shabaab ma nihin bulshada joogeen ma nihin waxaanu ka midnahay wadamada ay jaarka yihiin meelaha lagu sheego inay shabaab ka hawlgasho wasiirka ayaa sidan ka sheegay mar uu maanta la kulmay guddiga arrimaha bulshada ee golaha wakiilada Soomaaliland oo wax ka weydiiyay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta waxaana kulankan ay la yeesheen sidoo kale ka hadlay gudoomiyaha guddigaasi Xildhibaan Xasan Cawaale Caynaan markaasi wasaaraddiisa sida ay u shaqeeyaan halkay marayso iyo waxyaabo badan ayaan ka waraysan runtii aad iyo aad ayay noogu warrameen si fiican ayay noogu warrameen waxay u dhannaayeen wasiirkii warfaafinta iyo agaasimayaashiisii sidoo kale waxay ahaayeen aad ayay u badnaayeen waxaana nooga warrameen markaasi waxqabadkooda iyo halka ay hiigsanayeen anaana su'aalo badan wargeysadan oo kale waxaa laga damacsiiyay maadaama ay noogu jawaabay anagu ma haysano laakiin guddiyada kala duwan ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa muddooyinkii ugu dambeysay kulamo gaar ah oo kala duwan lahaa wasiirada kala duwan ee xukuumadda Soomaaliland Abdiraxmaan Arab Daawud TV-ga caalamiga Kalsan magaalada Hargeysa.